بسم الله الرحمن الرحيم habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka caawa ee qodobada aan idinkugu haynana waxaa ka mid ah in ka badan 10 qof ayaa lagu soo waramayaa dhimasho iyo dhaawac inuu ka soo gaaray weerar Israa'iil ay ka geysatay koonfurta waddanka Lebanon weerarkan ayaa ku soo aadaya iyadoo militariga Israa'iil ay qirteen in laba askari looga dilay tiro kalena ay ku dhaawacmeen qarax ka dhacay koonfurta waddanka Lebanon Israa'iil waxay sheegaysaa inay sii wadi doonto waxay ku tilmaamtay jawaabta laga bixinayo xadgudub Xisbullah ay ku samaysay heshiiskii rasaas joojinta barnaamijka sidoo kale waxaynu ku eegaynaa dowladda waddanka Iran ayaa sheegaysa in heshiis kasta oo ay la gaarto Cumaan oo ku aadan furitaanka marinka Hormuz in macnihiisu ahayn in marinkaasi si degdeg ah lagu furi doono dowladda waddanka Mareykanka ayaa ku dhawaaqday in cunaqabataynta laga qaadayo shirkad laga leeyahay waddankaasi Ciraaq oo la xiriirinayay ciidanka ilaalada kacanka islaamiga ee Iran sidoo kale barnaamijka waxaan idinkugu haynaa dowladda waddankaasi ee Israa'iil ayaa waxaa lagu soo waramaya qodobkaas ku celinaya dalka Mareykanka doorashada Michigan ayaa waxaa la sheegayaa in uu ku soo baxay isla reebka xisbiga dimuqraadiga musharax Abdul Al-Sayed oo si weyn u dhaliila siyaasadda Israa'iil waxaana haddii uu guuleysto uu noqonaya musharaxii ugu horeeyay ee muslima ee ku guuleysta doorashada aqalka sanadka ee waddanka Mareykanka dhammaan wararkan iyo weliba qodobo kale oo faahfaahsan iyo wixii war ah ee soo korna intaynu hawada ku jirno ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbinaynaa soo dhawaada mar kale daawadayaal waxaad la socotaan barnaamijkii wararka caawa maxamed maxmud cadde oo isu soo duway barnaamijka ayaa inoogu bilaabaya qodobada wararka kuwooda ugu doorka roon maxamed afrayda oo Lubnaani ah ayaa dhintay 12 kalena waa dhaawacmeen kadib markii ay Israa'iil ay bartilmaameed ka dhigatay saqafka masaajid lagu tukado oo ku yaalay meel xabaala agtood magaalada Tabniin sida laga soo xiganayo wakaaladda wararka ee waddanka Lubnaan diyaarad nooca droonka Israa'iil leedahay ayaa lagu duqeeyay tuulada kadibna dab ayaa dhashay qaraxyo weyn dhaliyay oo xaraagi agab military oo hore meelahaasi u yaalay isla mar ahaantaas 15 qoys ayaa guryahoodii ka cararay tuulada Al-Mansuur kadib markii militariga Israa'iil ay soo saareen amar dadka ay guryahooda oga eriyeyso qorshaysana in ay duqeyn xagga madaafiicda goobta geysan doonto arrintani ayaa imaanaysa iyadoo uu dardargelayo dagaalka iyo xiisadda u dhaxaysa ururka Xisbullah iyo Israa'iil ee ka socda koonfurta Lubnaan markii horeysay laba askari oo Israa'iili ayaa la dilay qaar kalena waa la dhaawacay kadib markii qarax uu ku haleelay dhisme ku yaala tuulada Majdaal Salam sida wararka ay xusayaan qaraxaasi ayaa dhacay iyadoo Israa'iiliyiintu ay wadeen howlgal military oo ka socday koonfurta Lubnaan xukuumadda Israa'iil weli ma ay soo saarin faahfaahin la xiriirta xaaladaasi waxayna arrintan ku soo beegmaysaa iyadoo dagaal u dhex marayo ururka Xisbullah iyo Israa'iil afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Iran Ismaaciil Bagay ayaa sheegay heshiis kasta oo Iran iyo Cumaan ay isla gaaraan ee la xiriira marinka Hormuz in uuna si toos ah u noqon doonin mid damaanad qaada amniga baddaasi isagoo afhayeenka dilin uu ku bixiyay in tallaabooyinka military ee Mareykanka ee gobolka ay ka wadaan ay yareysanayso arrimaha amniga hadalladan ayaa lagu wadaagay barta Telegramka ee wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Iran Bagay ayaa sheegay wax kasta oo amni xumo ka abuuri kara marinka Hormuz weli waa ay taagan yihiin wuxuuna soo xigtay in dowladda Mareykanku ay soo rogtay in ay go'doomin ku sameynayso Iran iyo tallaabooyin kale oo military oo khatar ku ah waddanka Iran iyo danihiisa dowladda Mareykanka ayaa cunaqabatayn ka qaaday hore ugu rogtay shirkad diyaaradeed oo laga leeyahay dalka Ciraaq kadib markii
la go'aamiyey in shirkadaasi ay isbedello waaweyn ku samaysay sida ay u howlgasho. wasaaradda maaliyadda ee waddanka Maraykanka ayaa sheegtay in cunaqabatayntii saarneyd diyaaraddaasi oo leh 2 diyaaradood in laga saaray sababo la xiriira xagga maamulka. hase ahaatee cunaqabatayntu weli meesheeda ayay joogaysaa ka dhanka Bashiir Cabdilkaadim Alwan Al-Shabani oo hore loogu sheegay inuu lahaa ninka diyaaradda iskale ama shirkadda diyaaradda iskale. dowladda Maraykanka ayaa cunaqabatayn ku soo rogtay shirkadaasi diyaaradaha ee Fly Baghdad la yiraahdo bishii January 2024 waxaana lagu eedeeyay diyaaraddaasi inay taageerto ciidamada ilaalada kacaanka garabkooda la yiraahdo xoogaga Quds, isla markaasna ay xiriir la leedahay kooxo Iraaqiyiin iyo Suuriyan iyo Lubnaan oo gargaar ka hela Iiraan. wasaaradda maaliyadda sarkaal ka tirsan ayaa sheegay go'aankaasi waxa uu daba socdaa markii dib u qiimeyn lagu sameeyey howlaha shirkadda diyaaraddaasi, waxaana lagu nuxnuxsaday tilaabadaasi inayna u taagnayn wax isbeddelan lagu sameeyey siyaasaddii waddanka Maraykanka ee ku wajahan waddanka Iiraan iyo ciidamada ilaalada kacaanka iyo ururada kale iyo shakhsiyaadka la sheegay in ay taageeraan. ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in Israa'iil ay sameynayso wax walba oo karaankeeda iyo wax walba ay ku qaadato siday ku xaqiiqsan lahayd amnigeeda haddii heshiis lala gaaro Iiraan iyo haddaan lala gaarinba. halka Netanyahu uu ammaanay madaxweynaha Maraykanka oo ku sheegay saaxiibkii ugu weynaa ee ebed madaxweyne Maraykan ah oo Israa'iil yeelato ayaa sheegay in Israa'iil jiritaankeeda uu yahay wax aanan wada xaajood laga geli karayn. Netanyahu oo ka hadlayay dib u aasitaan rasmi ah oo loo sameynayo Shamon Leib iyo Rivka Herzl oo ah awoowayaasha Theodor Herzl oo ah ninkii aas-aasay ururka siyaasiga ee Sahyuuniyadda sida lagu qoray warsidaha Nyant. Netanyahu hadalkiisan ayaa imaanaya iyadoo Israa'iil ay dagaallo cusub ku qaaday koonfurta Lubnaan, iyadoo wadaxaajoodada dhex maraya Israa'iil iyo saraakiisha Lubnaanna ay ka socdaan magaalada Rome ee dalka Talyaaniga, waxaana la dhexdhexaadinaya dowladda Maraykanka. hay-adda badarmeereennada ee laga leeyahay waddanka Britain ee magaceeda loo soo gaabiyo UKMTO ayaa sheegaysa markab marayay xeebaha Yemen in lagu warramay in uu qarax haleelay. xaaladaasi ayaa waxay ka dhacday baa leeyahay 95 nautical miles ama 176 kilomitir meel koonfur bari ka xigta magaalada Cadan ee dalka Yemen, sida laga soo xiganayo hay-addaasi. waxaana intaas lagu daray shaqaalihii markabkaasi saarnaa kulligood waa la badbaadiyey waana bad qabaan. wararka caalamkan waxaa ka mid ah xisbiga dimuqraadiga ee waddanka Maraykanka ayaa horumar sameeyey kadib markii uu guuleystay Abdul Al-Sayed in uu noqdo ninka u sharaxan kursiga senatka ee xisbigaasi ee gobolka Michigan. taas ayaa waxa ay siinaysaa fariintiisa iyo didiilo iyada oo bisha November la qaban doono doorashada qadka dhexe. Al-Sayed oo ah nin dhakhtara ayaa ololeyntiisu waxa ay ku saabsan tahay arrimaha caafimaadka, dhaqaalaha iyo in la soo afjaro gargaarka militari ee shuruud la'aanta Israa'iil la siiyo. waana markii ugu horeysay qof siyaasaddiisa hore tahay in uu ku guuleysto in loo magacaabo in uu tartan la galo nin ka tirsan xisbiga jamhuuriga kongareskiisa hore u ahaan jiray oo Mike Rogers la yiraahdo bisha November doorashada dhacaysa. Michigan waxaa doorashadii 2024 ku guuleystay Donald Trump. waa hagaag maxamed, aad baad u mahadsan tahay. daawadayaashuna way mahadsan yihiin. waxaan u gudbaynaa daawadayaal falaqaynta wararka iyo wixii wara degdeg ah ee soo kordhahaya ayna ku hakan oo qadar xayeysiin. soo dhawaada mar kale daawadayaal. weli waxaad la socotaan barnaamijkii wararka caawa. maxamed, aan ku bilowno arrimahan ka soo cusboonaaday koonfurta Lubnaan. Israa'iil askartan ay sheegayso in ay ka dhinteen iyo weerarkan ay qaaday, iyo hadda wararka ugu dambeeya waxay sheegaysaa Israa'iil
in jawaabta intana aysan ku ekaan doonin dhowr duqeyl baana hadda laga soo warinayaa koonfurta waddanka Lubnaan arrimahan iyadoo wada xaajood lagu dhow yahay oo madaxweynaha Mareykanka uu leeyahay heshiis baynu Iiraan la gaaraynaa inkastoo Iiraan ay leedahay wada hadal Mareykanka kulama jirno maxay ka macno yihiin dhanka aan u wareegno koonfurta Lubnaan iyo Israa'iil waxa kala dhex maray 24 saac ka hor waxa hadal jeediyay hogaamiyaha ururka Xisbullah ama xogayaha guud ee ururka Xisbullah Naim Qasim si buuxda ayuuna u sheegay in aynan yeelaynin in hubka laga dhigo dowladda waddanka Lubnaan wuxuu ku bogaadiyay in ay qaataan tilaabo waddanka wadajir u wadaysa asagoo sheegay in siyaasadda Mareykanka iyo Israa'iil ay wadaan iyo dhexdhexaadinta ay wadaan oo Iiraan oo Xisbullah hubka looga dhigayo aynan marnaba shaqaynin in aanan waddanka fidna laga abuurin tan kale oo ayadana soo taraysa ayaa waxay tahay in Xisbullah marba marka ka dambaysa ay dagaalka sii kululeynayso Israa'iilna in aynan aqbalaynin in ay ka baxdo koonfurta Lubnaan Xisbullahna ay ka go'an tahay Israa'iil intay dhulkeeda ku jirtay inay dagaalka joojinayaan arrinta kale oo ay soo taraysa ayaa waxay tahay Mareykanka ayaa waxa uu wadaa dhexdhexaadin xukuumadda Lubnaan iyo Israa'iil laga dhex wado xukuumadda Lubnaan shirkaasi wuxuu ka socdaa magaalada Rome ee dalka Talyaaniga xukuumadda Lubnaan waxaa muuqata inayna awood u lahayn inay ku xakamayso Xisbullah laakiin jidka ay ku socoto sida khabiirada hadalka u dhigayaan waxa ay iska horkeenaysaa xukuumadda iyo ururka Xisbullah arrintaas haddii dhacdana waxaa khabiiradu ay tilmaamayaan in dagaal sokeeye uu dhici karo Israa'iil marnaba ma xushmayso heshiisyada ay gasho Mareykanka ayaa waxa uu isku dalbayay in Israa'iil dagaalka joojiso laakiin hadda sida wax u muuqdaan arrintu waxay maraysaa meel aan baraka lahayn waa gartay waa yahay wixii waraha arrimahaas ku soo kordha waynu arki doonaa xaggan aynu u wareegino Xuutiga waxay maanta sheegeen markab Sacuudiga laga leeyahay inay beegsadeen haddana warbaa soo kordhay oo leeyahay markabaa la weeraray maxaa laga leeyahay xaaladahan imika socda iyo maraakiibtii Sacuudiga oo Xuutiga ay u diideen badda cas markabkani waa markabkii 8aad oo la weerarayo ilaa iyo bishii Juulaay 22keeda marka Ansaarullah ay ku dhawaaqeen in ay go'doomin xagga badda ah ku soo rogayaan waddanka Saudi Arabia sida lagu xusay bayaan ay hore u soo saareen xoogagga Ansaarullah ayaa lagu sheegay 29 maraakiibta Sacuudiga ah ee kuwa xamuulka iyo shidaalka qaada in laga hor istaagay inay maraan badda cas iyo badda Carbeed intaba Yahya Sariic oo ah fayeen oo ah ururka Xuutiyiinta ayaa sheegay in ay weeraradaasi ay sii socon doonaan dardar geli doonaana ilaa iyo inta go'doomintaasi ay ku soconayso waddanka Saudi Arabia maraakiibteeda ilaa iyo inta cunaqabataynta Sacuudiga uu ka qaadayo waa sidoo hadalka u dhigay waddanka Yemen Xuutiyiinta ayaa waxay aaminsan yihiin Saudi Arabia in ay go'doomin ku soo rogtay waddanka Yemen kana hor istaagayso in shixnado ay soo galaan dekedda Xudayda taasoo ah dekedda keliya oo ay gacanta ku hayaan ururka Ansaarullah waxaana muuqata 80% ilaa iyo 90 waxyaabaha dibadda ka yimaada in laga soo dejiyo dekedda Xudayda Xuutiyiinta ayaa isku dayaya in Saudi Arabia ay waajib tahay in ay go'doominta ka qaado waddanka Yemen oo lagu soo rogay dhulkaasi ama Yemen lagu soo rogay markii ay xukunka la wareegeen Xuutiyiinta 2015 Ansaarullah ayaa waxay aaminsan tahay in cudurdaar fiican loo yeeli karo in ayagu dhinacooda ay go'doomin iyo cunaqabatayn ku soo rogaan Saudi Arabia ay ka hor istaagaan in maraakiibtooda wax qaadaan wax la soo dejiyaan ugu dambeyntiina dalabkooda ayaa waxa uu yahay Saudi Arabia waxa waajib ah inay qaado go'doominta ay ku hayso dalka Yemen dhanka kale qaar ka mid ah khabiirada ayaa waxay aaminsan yihiin in Xuutiyiintu ay wada shaqayn la leeyihiin waddanka Iiraan
kooxdan Yemen ayaa ku dhawaaqday inay xulufo la tahay waddanka Iiraan ayaa go'doomin ku soo rogtay marinka Hormuz. Yemenna waxa ay sidoo kale doonaysaa in ay wada shaqayn la yeelato waddanka Iiraan, isla markaana ay joojiso saliidda maraysa ama ka baxaysa waddanka Saudi Arabia ee maraysa Bab Mandab. waa gartay waa hagaag inta haddaynu ka gudubno xagga Hormuz aynu eegno Iiraan hadda warka ka soo baxaya wasaaradda arrimaha dibadda waxaa la leeyahay heshiis ayaa qarka loo saaran yahay inta badanna isfaham ayaa la gaaray marka laga hadlayo wadahadaladii u socday Cumaan iyo Iiraan waxay leedahay Mareykanku arrintan shuqul kuma leh Cumaanna dibnaha iyo ka xiratay arrintan maxaa ka soo kordhay xaaladdan maxayse ka macno tahay Iiraan inay marinka Hormuz iyadoo ay maamulayso Ali Akbar Dareeni oo ah cilmi baare fadhigiisu yahay uu magaalada Teheraan ee caasimadda waddanka Iiraan kana tirsan xarunta daraasaadka istiraatiijiga ayaa sheegaya Iiraan ayaa waxay rabtaa in ay xasiliso isla markaasna ay gacanta si fiican ugu dhigto marinka Hormuz taasoo ah guulaha ugu waaweyn oo militari ee dagaalkani Iiraan ka soo hoysay. Wadaxaajoodkan ayaa looga golayaa sida lagu xasilin lahaa guulaha ay Iiraan soo hoysay sida Dareeni oo hadalku dhigayo. Iiraan uma muuqato inay wax wadaxaajooda ka galayso guulaha ay ka gaartay qabsashada marinka Hormuz iyo xasilintiisa. Marka ay marinka Hormuz Iiraan furto, Dareeni sidoo hadalku dhigayo, Iiraan ayaa waxa ay u badan tahay in ciddii maamuleysay ayada magacooda si ay u xaqiiqsato nabadda in ay sii shaqayso iyo gacan ku haynteeda. Iiraan waxay doonaysaa inay xaqiiqsato in uunan jiri doonin cid maraysa ayaga ogolaashaheeda la'aanteed. Waxaa jira waxyaabo fara badan oo khatar ah ama qarxa dagaalkana ma jiri doono sida hadalka loo dhigay. Wuxuuna sheegay wuxuuna ku doodayaa Iiraan inay u baahan tahay inay xaqiiqsato dowladda Mareykanka iyo xulafadeeda in aynan awoodooda militariga iyo qalabkooda militariga ayna u isticmaalin inay ku weeraraan waddanka Iiraan. waa gartay haddaynu arrintan kusoo gabagabayno su-aasha ugu dambaysa Mareykanku xagee buu kaga jira arrintan Maxamed? su-aashaas waa su-aal aad iyo aad u fiican waana su-aal xasaasi ah. Mareykanku wuxuu isku dayayaa in uu maareeyo wararka la xiriira waddanka Iiraan iyo wararka la xiriira wadaxaajoodka dhex maraya Iiraan iyo Cumaan maadaama uun wada hadalka qayb ka ahayn. Iiraanna ay garwadeen ka tahay wada hadalkaasi, Cumaan iyo wadamada kale gacankana ay wadaxaajood leeyihiin, ayaa Mareykanku wararkan uu soo saaraya ee la xiriira marinka Hormuz uu yahay mid uu rabo in uu ka dhigto in uu shaqo wado ama wada hadal ha noqoto ama ha noqoto dhexdhexaadinta siduu hadalka u dhigayo. Laakiin xaqiiqada meesha jirta ayaa waxay tahay Iiraan waxay aaminsan tahay marinka Hormuz in ay xoog kula wareegtay, inaynan kala tashanayn waddanka Mareykanka, inaynan dhexdhexaadin ka galaynin maalintiisa iyo maamulkiisa, in shidaalka maraya uu yahay mid rukhsad ka haysta waddanka Iiraan, in laba wadiiqo inay jiri doonin. Mareykanka dhowr goor ayuu isku dayay Cumaan in uu gacan maroojin inta ku sameeyo oo isku dayo in uu ka hor keeno waddanka Iiraan. Hadda waxaa socota marka wadahadaladii Cumaan iyo Iiraan, iyadoon Cumaan iyo Iiraan labadooda aynan warar ka soo bixin ayaa Mareykanku markasta war soo saaraya. Sida khabiirada hadalku dhigayaana waxa weeye guul darrada ayuu Mareykanku maareyn layahay ayay leeyihiin khabiirada arrimahan la socda. waa hagaag Maxamed aad baad u mahadsan tahay, daawadayaashuna ay mahadsan yihiin. inta ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka. daawada si aad ula socoto wararkan iyo barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbino, haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn, hadda ku soo biir. Waa inoo barnaamijka xiga insha Allah inta ka horeysa. nabadgelyo.